นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada daawadayaal qisadan quruxda badan balse intaynan guda galin qisadeena fadlan muuqaalka like saar oo na dareensii inaad ka heshay muuqaalkani kuna soo dhawaada qisadeena gabadhani waxa ay la nooshahay hooyadeeda mana taqaana wax shaqo ah sidoo kale hooyaduna waxba ma aysan soo baranin oo wax iskuul ah ma aysan soo dhigan weligeed hooyadu waxay tiri ma garanayo sida aan gabadheeda wax u baro laakiin mid kaliya aan wax ku bari karo waa in aan tusaa wax aan barayo gabadheeduna si dhaqso ah ayna ku baran jirtayให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง maalin maalmaha kamid ah gabadhii yareed waxay aragtay ardaydii ay isku fasalka ahaayeen oo iibsanaya jalaato laakiin iyadu ma ahayn mid iibsato jalaatada oo wax lacag ma haysato markii ay ku soo laabatay guriga waxay bilowday inay fikirto waxayna go'aansatay inay cananaas ka sameyso jalaato kadib waxay sameysay jalaato cananaas oo aad u macaan hooyadii ayaa aad u la yaabtay fikradda gabadheedii waxayna bilowday inay ku dhiirigeliso fikraddii ay keentay waxayna ku tiri orod noo soo iibi hooyo gabadhii yareed ayaa bilowday inay soo iibiso jalaatadii laakiin markii ay timid suuqa cidna kama aysan gadanin kadib gabadhii ayaa u soo noqotay hooyadeeda waxayna ku tiri hooyo maxaa la iga gadan waayay jalaatada hooyadii ayaa ku tiri gabadheeda waxaad aadaa suuqa soona fiiri sida dadka ay u iibiyaan badeecadahooda kadib gabadhii ayaa aaday suuqa waxayna bilowday inay fiiriso oo dhageysato sida ay suuqleydu wax u iibiyaan kadib waxay ku soo laabatay guriga waxayna sameysay sawir ay ku muujinayso jalaatada waxayna ku qortay qiimaha ay iibinayso jalaatada waxayna mar kale aaday suuqa markii ay timid waxa laga iibsaday dhammaan jalaatadii ay waday hooyadii ayaa ku faraxday guusha ay gaadhay gabadheeda waxay ahaatay gabadhii yareed markii ay garaacdo gambaleelka baaskiilka mid ay ku soo ordaan caruurta waxayna ka iibsan jireen jalaatadii macaanka badneed ay ka sameysay cananaaska sidaasayna gabadhii iyo hooyadeed ku noqdeen kuwo guuleystay xaqiiqdii gabadhani waxay mudan tahay in qof kastoo raadinaya wadada uu guusha ku gaari lahaa inuu ku daydo fadlan la wadaag qisadan asxaabtaada si ay gabadhan yar ay ugu cibro qaataan sidoo kale adigaan daawanaya muuqaalkan fadlan like saar sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka Dacwo Tube fadlan ku soo biir oo subscribe saaro siina share garee muuqaalkan haddii aad awoodo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waa anigoo ah Zaki Maxamuud oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح تزيد ترح الحمد لله على الإسلام